ما هو شيء يولي سوماليلاند بريشر ما صارينه حتى من دبلوماتيكا سوماليلاندنا وكهم بلييننا دورشوين كان كدعايا iyadoo ay Soomaaliland ciidamadeedii dad leynayaan oo dhig baxayo taageero hadii xitaa uu rabo inuu ku beer la xawsado ama uu ku soo dhaweeyo siyaalo uga haboon baa jirta arinta tan xasan oo adiguna waa ogtay madaxweynuhuna waa ogyahay dadkana waa wada damqanayaan damqashada taala iyo crisis of confidence ka yaala in qofku hadal aan miisaaneyn uu yiraahdo dhibaatay keenaysa arinta jubbooyinkuna madaxweynuhu baydhabo tagay wuxuu yiri baydhabo xaq bay u leedahay maamulkeeda inay soo dhisato balad weyn u tagay hiiraan inay maamulkeeda soo dhisatay xaq u leedahay marka jubbooyinka laga hadlayo madaxweynuhu ma aha war uu yiri ee ku dhaqmay oo gudiye u sameeyay uu leeyahay maamulka jubbooyinka dawladda dhexe ayaa arintaas sameynaysa meel ay ku taalo iyadoo aasan dawladdu golaha laakiin xildhibaan oo baarlamaan ka tirsan oo barnaamijkan falanqeynta ka qayb qaatay la yiri oo aad loo iibiyay been fakatay runimo gaartaa la yiri madaxweynaha beledweynuhu intuu tagay yaa wuxuu yiri reer beledweynow maamul sameeysta reer Kismaayana annaga u sameeynayno wax jira ma aha wax jira ma aha wax jira ma aha ilaahay mahadiis adduunyo casri aan ku noolnahay warkii aniga aan beledweyne ka iri asoo maqal iyo muuqaal oo duuban yahay waa been warkaasi waxba kama jiraan ma dhihin inaan dhahana diyaar u mihi dadka Soomaalida oo dhamaan madaxweynaha u ahay dhamaantoodaan rabaana inay guuleystaan dhamaantoodaan rabaa inay awood u yeeshaan ay ku gaari karaan go'aan aayahooda iyo ilmahooda cidda u talinayso ay go'aan ku gaari karaan nin marka awoodi kari waayay ra'yi siyaasadeed inta la yimaado dadka inuu qanciyo oo wax u sheego oo wax qabad uu tuso oo ku gabanaya reer hebel hadaan nahay reer hebel hadaan nahay waxba kama jiraan wax ka jira ma jiraan qabaa'ilka Soomaalida dhamaantood sharaf iyo haybaday leeyihiin waan ka soo quusanay Soomaali hadaan nahay waan ka rajo dhignay wax reer gaara u roon oo reerka kale u rooneen inaan helno waa soo dhignay waxaan raadiyo haynaa oraahda waxa xigmadda aan isticmaalaynaa wixii hooyada uurka la u roon ayaa cunuga uurka ku jiran u roon wixii Soomaaliya u roon ayaa reer kasta oo Soomaali ah u roon waxaan Soomaali u roonayn reer gaarahay u roonaan karaan ma jirto marka waxaan leenahay aan ku mashquulno aan jirino waxa Soomaaliya u roon maanta maalintaas aan joognaa waxaan rabnaa wax Soomaaliya u roon Soomaaliya wada guuleyn karo ma dhacayso reer gaara iyo degaan gaara iyo gobol gaara inuu guuleysto Soomaalida inteeda kana ay fashisho waana soo taabanay in Romanski ba waxay oran jireen Caesar ninkii emperorkii dhulka xukumay markaa islaantiisu waa inaan shakiba laga gelin waa inaan la tuhmin islaantaas madaxweynaha Soomaaliya waqtigan aynu joognaa wuxuu u baahan yahay ama loo baahan yahay ama laga sugayaa madaxweyne aan shakigaas oo meesha iman midaan anigu ogahay waxa weeye gudiyo jubbooyinka muddo ka soo shaqeynayay inay xamar yimaadeen waan joogaano markaa xamar guddi 720 midhay jirta 12 baa xamar yimi oo runtii isku dhafan oo dad meesha marayay waaba wada yaqeen badidooda madaxweynaha doodii dhaxmartaan anigu ogahay madaxweynuhu inuu ba yiri ana 10 nin oo baarlamaanka ku jira magacaabaya wasiirka gudaha maaha oo prime ministerka maaha 10ka uu magacaawdayna 10 qadiyadaaba ku shuqul leh ma aha arrimaha marka dadka walwalka galiyay ma aha wuxuu ku dhaqaaqay laakiin waxa dhacday wufuudina u diray meesha hada situationka xoogaa way isbedeshay wafdiye ka yimi oo xaga ka yimo xamariyana waaba maqlay iyo kuwa u soo socda laakiin kuwii hore la diray
ولا بيسوي عليه ايربورت كسمايو وجرين سو ما جيرين waxa lagu eedeynaya intaba waa madaxweynaha waxaan ogahay golaha prime minister cabinetka inay ku jiraan dad u dhashay goboladaas xog badanna ka haya madaxweynuhu arintu waaba cusbayd taariikhuna waa jirtay goboladaas dagaal ka socon jir hab qabiiliyana wuu ahaa maamulka xamar markaa joogay ee anigu aan xitaa kamid ahaa ee carta markii dambe dhibaatooyinka nadumiyay cartay kamid ahay dagaalada Kismaayo ka socday waxa markaa loo baahan yahay xasan anigu waa u vootay kalsooni baan ku qabaa saacid waa inaan xurmo badan u qabo golaha wasaaradana dhowr qof aan aqaan waaba ku jiraan anigu waxa igu muuqataa madaxweynuhu hadiiba xitaa arin uu rabo inuu bal wax soo dhiso oo wada tashi iyo golaha wasaaradda iyo baarlamaanka iyo meelaha arintaas khusayso haday arintu bay iyo bakool tahay waxa xaq leh dadka bay iyo bakool madaxweynaha iyo prime ministerka iyo wasaaraddu inay la tashadaan iyadaan la tashan hadii kale waxay noqonaysaa waa tahay mustacmarad bay noqonaysaa professor Ali Qaliib Galayr